beel ka mid ah beelihii dirirtu ku dhex martay deegaanka Dararweyne ee gobolka Sanaag ayaa xukuumadda ku eedeeyay inay xukuumaddu dhan ka tahay colaadda labada beelood ee wadadega deegaankaasi waxaana madax dhaqameedka iyo aqoon-yahanku sheegeen inay beeshoodu diyaar la tahay inay bixiso nabadgelyo isla markaasina ay beelaha walaalahooda kula noolaato nabadgelyo hase yeeshaana xukuumaddu diyaar u ahayn inay labadan beelood heshiis dhex maro waxaana iyagu arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa dawladdu mar kasta oo ay timaado go'aamay sameeysay ballamay sameeysay digniinay jeedinaysay waxa ayaan darradu tahay ilaa iyo maanta ma hayno hal talaabo ah oo dawladdu waxa dhacay ee cid gaarka ah ay sameynayso laga qaaday ma hayno waxa ayaan darro ah oo kollayba anigu aan la yaabanahay waxa weeye dawladdu maalinta dambe ee go'aamada dambe ay soo saartay waxay tiri ciddii nabadgelyada dib u jabiso talaaba laga qaadaya kuwii jabiyay talaaba kamay qaadin gaadiidkii technically weerarka samaysay ciidamadii intiiba waa urursan yihiin ma garan ujeedada dawladdu ay ka leedahay wixii ay soo saartay inay wax ka qabato way ka cagajiidaysaa in badan oo horena waxaanu nidhi dan kastaba ha kala ahaatee dawladdaasi iyadaa ka mas-uula nabadgelyo xumadaa jiitamaysa runta in laysu sheega magaalooyin la gubay baa jira guryo la gubay baa jira weerar rumaysan baa jira gaadiid xidhiidhsan baa jira cid aad moodo inay gaashaandhigba iska tahay oo dawladda gebigeeduba ay dhinac taagan tahay oo la ficiltamayso baa jirta laga qabto boqolkiiba boqol waxaanu saaraynaa waxqabad darrada iyo dadaal darrada dawladda maanta joogtay ee Somaliland baanu saaraynaa inaanay wadaday lahayd iyo haykalkay lahayd iyo waxqabadkay lahayd inaanay qaban mid qabanaysana aanay u muuqan gurmad badan baa dhacay oo dee baxog maayo meelo fog ilaa Ethiopia laga soo gurmaday orgooyinku ka yimaadeen salaadiin boqorro cid walba dad runtii macquula baa yimi iyaga oo afka oo ka saaro waxay yiraahdeen idin ma taalo waa direen nin walibana waa ku jiray dadkii dee beelaha heshiisiin jiray bay ahaayeen arrintan oo kale dhaqan baa loo celin jiro kuwaas oo kale ka gudii jiro dadka isugu jiro intaaba ma gaadheen afka ilaanka kaga jiideen wasiiradii iyo dawladii iyo maamulkii jirayna annaga wax qabanayno xukun gaarayna yiraahdeen waxba yeeliyeen sida loo sheegay ilaa hadda xukun wax laga qabtay hadduu kuwii ay yeeliyeen lagu tuntay iyo haddii weerarkii socdo iyo dagaalkii iyo haddii ay u socon iyo gubitaankii wax laga qabtay ma jirto waa sidaa loo sheegay waxaanu leenahay dadka u sheegaynaa annagu sida odayada hore sheegeen nabadgelyaanu hore ugu baaqnay maantana nabadgelyaanu ku baaqaynaa cid kasta oo dawladda Somaliland iyo shacabka reer Somaliland iyo cid kasta waxaanu u sheegaynaa inaanu nabadgelyo hayno nabadgelyaanu ku baaqayn waa la survey baa la marinayaa arliga iyo waxa ma garanaysaa kii halkaasi baladii waxba ka socday waxaan leenahay xukun dawladeed oo annagu aanu tixgelinayna saacada laga bilaabo ma jiro loogu iman maayo hadday xukun dawladeed iyo wax jirsiinay way sababtu ku tahay wax qabad baa muuqanba sidii loo sheegana waxaan islaahnaa hadda dawladda ka dambaysa waxa kanti